وحياة كاشات سوماليا قرن مدير دافع وضيع puntland waxay diyaar u tahay tallaabo kasta oo munaasab ah xilliga munaasabka ku ah inay qaado oo suuragal ah waxaana u leeyahay dagaal laga faa'iido ka joogo haddii si aad ka fursan weydo oo weerarka soo qaadana وحياة كاشات سوماليا قرن مدير دافع وضيع maamulka Soomaaliland si cad waxaan ugu sheegay oo la raacsannahay Soomaaliland inay ka baxdo dhammaan gobolka Sool gudihiisa magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka meelaha ay ka joogaan dani wuxuu yiri xasuuqa ka dhacaya Laascaanood eegan ma inuu ka dagaalamay waxaan ugu baaqaynaa haddaysan fahmin baaqyada aan dirayno ee isgaraadadu dirayaan oo cuqaashu dirayso oo shacabku uu sida fariinta u diray haddii ku waantoobi waayaan intaas puntland waxay diyaar u tahay tallaabo kasta oo munaasab ah xilliga munaasabka ku ah inay qaado haddii aad ka joogi weydo nabadda diido waxaad ka ashaadaa soo socota xasuuqa ka dhacaya qarniga 21aad oo dad codkooda iyo dareenkooda dhiibanaya rasaas lala dhacayo nool oo waaweyn in ay go'aan ad ka qaataan puntland waxa weeye dulqaadkii waa ka dhammaan intii boosaasan ku dhimatay adiga iyo diyaana ay ka dhintay ka dhacday shan gore ka badan intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee ku joogtay ay ka soo degaysay ma gaarin dareenkeen ugu muhiimsan wuxuu ku socdaa dadka reer Sool ee maamulkaas ka tirsan fariinta aan u dirayna waxa weeye inaan si wada jir uga wada qayb qaadano badbaadada dadkeena iyo mujtamaceenna iyo dhiigga gabdhaheena iyo wiilasheena talada adiga ku xigeenka ugu dheer weerar qaado Soomaaliland aad bay arrinta u dhageysanaysaa oo maqlaysaa dadka reer Sool dadka reer Laascaanood gabdhaha iyo wiilasha halka ku jiraan waxaad ogaataan in garabkiina la taagan yahay in aan horteena in lagu jijiidi doonin haddii ilaahayno inaad gurmadka noocuu doono iyo wakhtiguu doono aad naga helaysaan wixii aad ku tashataan oo taladiinu ay tahayna inaan inagu taageerino oo mar walba garabkiina taagannahay diyaarna u nahay dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inaan arrintaas qaybteena ka qaadanno wax ku kordhiyo waxaad istaawilisada diyaar baan una waxaan rajaynaynaa arrintaas in ay tafaasiisheeda maalmaha soo socda la dheehan karno dowladda puntland way ku filan tahay danaheeda oo dhanna inay qabato madaxdeeduna arrintaas ayay heegan u yihiin arrinta dani iyo wararka uu ciyaamiyey inay xamar dowladda joogtaan la midnimo iyadu soo furtay waxa uu daliila maanta golisa shacab intuu fariistay ayuu guddi u soo saaray arrinta Soomaaliland taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisay maanta ay ka bareedhay in Soomaaliland ay weerar ku qaado